Yarashada dadka aragga naafada ka waxaanu sheegay inay wadaan qorshe 11 gabdhood oo aragga naafada ka lagu guurinayo isla markaasina xafladda daafurkan lagu qabanayo qasriga madaxtooyada oo ka soo qayb gali doona madaxweynaha Soomaaliland. qofku waa in dhabeelay meel baa la fariisiyay si dhil caana training lama siin lama barin bareelkii soo socon lahaa wuxuu karsan lahaa wuxuu baran lahaa lama barin gabdhaha oo kala guurku waa ku yar yahay oo dhaqabayaashu waxay yiraahdeen gabar waxaan doonaa anaga hurdada ilmaha naga macnayso wax walba inay wax walba qaban karaan hadii la barana ma garanayaan oo imika dhawaan insha Allah waxaan qorsheynaynay 11 gabdhood in madaxtooyada xaflad loogu dhigo guurkooda madaxweynuhu xariga ka jaro karaamo iyo duco ku helo xalaasa ugu daran wax kale ugu daran salaam imika madaxweynuhu waxay ku qatantaa in laga taageero qarashkii arooskii kulay mid anoo kala ama mid la mida oo isagana qarashkii haysan oo xamilkii dhaqaale lahayn ayaa gabadha indhaha la jahradii weylada niman adiga ahna may arag niman adiga ahna may taaban ma fahamsa nimcada meesha fadhida inuu ninka faa'iideysan lahayo badan baa jira ama indhoole guursaday horadu maqasheen laba isguursado saxaafadoona loo soo bandhigay marka waxaan doonaynaa in qiimahooda banaanka la soo dhigo inay yihiin hablo Soomaaliyeed oo dhadiga oo dhalaya oo dhaqi kara oo wax walba qaban kara qaybo way haystaan waxaan waa hordhac sanadkan intuu dhamaan ah ilaahay fadligiisa wax qabad badan baanu ka rajaynaynaa imka xajka sanad walba intaas oo milyan oo dollar bay xajka ku tagaan wadaadadu ko ilaahay wax siiyay haday 2 sano joojin lahaayeen wax badan bay naafada u qaban lahayd bal tusaale ku siinaya hadii aad tagtay 5 jeer xajka bal qofkii naafada ay dariska kula ahaana uunan waxna baran waxna haysan uu gacanta saa u wareejinayo sharqan dhageysan ku leeyahay ilaahay wax siiyay oo halka 500 loogu rido uu leeyahay kii waday war ma kunba ma shantii kun wuxuu ka biin lahaa gaajada inuu wax jirayo noolaan karna uu samayn lahaa baraarug baan u dhaqdhaqaaqaynaa badan baan tawaynaa baahida tiru baahan baa jira qaar aanu doonayno Melhal Hospital Shiina iyo rag la shaqeeya inay free bacteriyada iyo indhaha ku dhacda ay ku daweeyaan waa rabnaa in la rajgareeyo oo Soomaaliland wax ku nool oo indhoolaal rajgareeyo waa rabnaa baahidooda adar waa badan tahay ilaahay baanu ka rajeynaa inuu madaxdeeda noo soo jeediyo dhinaca kale Siciid Maxamuud Xuseen waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka codsaday in maalmaha Jimcaha uu soo booqdo dadka naafada ah si ay u helaan rajayeeda diilo isagoo arintaas ka hadlayna waxa uu yiri madaxweynaha waxaan ka codsan lahaa bil walba Jimcaha ugu dambaysa inuu naafo iska dhigo oo la kulmo dadka naafada aad baan u codsan lahayn sababta ereygiisu meel walba gaaraya dhul gariir buu noo samayn karaa hay'aduhu suuqa yeeri karaa ganacsiyaashu oran kara maartay hoos u eega kuwan anigu dalan la aqoonsanayn in ciidankiisa iyo shaqaalihiisa ka kabayahay Siciid Faarax Agjar Kalsan TV Hargeysa.